waxaana u wanaagsan daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada kanaalka qalbi Soomaali TV maanta waxaynu soo qaadanaynaa isla markaana falanqeyn doona isla markaana balbalaarin doona heesta loo yaqaano Dado ee uu soo qaaday fanaanka caanka ee loo yaqaano Cabdihani Xaashi Cabdullaahi hadaba fanaankan waxa uu soo qaaday run ahaantii hees ay ku duugan tahay sir aad u weyni hadaba sirta ay idin sheegay daawada hadii ay tahay markii koobaad kanaalka soo booqato fadlan calaamada subscribe ka taabo oo riix kadibna calaamada gambaleelka furo inta kadib waxaad heli doontaa barnaamijyada xiisaha badan ee kanaalka qalbi Soomaali TV maalin kasta aanu soo galino ku soo dhawow barnaamijka daawadayaal sidan hore idinku sheegay waxaynu falanqeynaynaa heestan loo yaqaan Dado ee uu soo qaaday fanaanka qaaliga loo yaqaano Cabdihani Xaashi Cabdullaahi hadaba fanaankani waxa uu kamid yahay fanaaniinta lagu jecel yahay geeyiga Soomaaliyeed haduusanba kuwa hore ku jirin sidaas oo tahayna fanaankani waa fanaan ka soo jeeda magaalada Hargeysa sidaas oo tahayna waxa uu ku jira kooxda loo yaqaan Xidigaha Geeska hadaba heestan uu soo qaaday fanaankan loo yaqaano Cabdihani Xaashi waxa loogu magac daray Dado isla markaana heestani waxa ay xambaarsan tahay qiso aad u weyn bay xambaarsan tahay ama waxay xambaarsan tahay xigmad aad u weyn bay heestan ku jirta run ahaantii heestan marka aynu ka hadlayno fanaanku waxa uu ku bilaabayaa isagoo shaqileysanaya ama gooyeysanaya lugaha isdhaafsanaya isla markaana go isku wareejinaya taas waxaad ka garanaysaa inay tahay heestan hidiyo dhaqan inay tahay heestan hees ay mas'uuliyad ka muuqato hees la oran karo marka maaragtay laga hadlayo waa heesaha imika dhaqankii dib u soo celinaya isla markaana maaragtay sidii hore fanka Soomaalidu u socday ee heesa jacayl oo kaliya la qaadi jiray waa ay ka duwan tahay heestani isla markaana waxa jira fanaaniin kale oo iyaguna arrintan sameeyay waxa kamid ah fanaanka loo yaqaan Cabdirasaaq Anshax oo soo saaray labada heesood oo midna uu bixiyay geel jire midna uu kaga hadlayo nin dhalinyaro ah oo magaalada Hargeysa jooga oo waayihiisa qaba oo bilaa camal oo aan shaqo haysan isla markaana iyo waliba siday dadku la tacaamilayaan ninka dhalinyarada heesahan waa loo baahan yahay waynu ku dhiirigelinaynaa fanaaniinteena in fankeena uu noqon inuusan fankeenu noqon fan ka hadlayo oo kaliya arrimaha khuseeya jacaylka nin iyo naag dhexmara laakiin waa inuu fanku noqdaa fan dhinac kasta nolosha ka waramaya hadday noqoto waa in la soo saaraa heeso fanaaniintu ay qaadayaan isla markaana waalidka ku saabsan heeso nolosha ku saabsan heeso ixtiraam ku saabsan heeso dhowlacadaynta ku saabsan waxaasoo dhan waa in la soo saaraa hadaba fanaanka loo yaqaano Cabdihani Xaashi waxa uu soo qaaday heestan loo yaqaano Dado run ahaantii Dado waxa weeyaan waxay ka turjumaysaa nin beeriska leh oo waliba maaragtay wadankiisa ku dhaqan isla markaana xaaskiisu ay la joogto isla markaana aragti wanaagsan iyo kalgacayl wanaagsan ku dhaxeeyo Cabdihanina waynu ognahay waa fanaan xaaskiisa aad iyo aad u jecel waa fanaan xaaskiisa aad iyo aad ugu faana sidaas ay tahayna heestan iyo bal waxaynu sugaynaynaa qisada aynu soo wadno isla markaana aad maqli doontaan sidaas ay tahayna daawadayaal heestan gabadha la matalaysa ama kula jirta waxa ay matalayaan laba qof oo nolosha maaragtay saldhigay isla markaana beeris kale isla markaana iyaduna shaahi iyo cuntada ay soo sameynayso isaguna maaragtay wixii nin raga looga baahnaa inuu shaqeeyo inuu reerkii bariiskoodii doono wixii oo dhan ayuu isaguna sameynayaa run ahaantiina waad u jeedaan gudun baa sitaaba heesta marka aad daawateen muuqaalkeeda gudun buu xoqayaa taasina waa waxa weeyaan in ninka ragga reerkiisa uu maaragtay u ahaado hoggaan way fiican tahay isla markaana wax kasto hawl kasto adag u soo qabto iyaduna gabadhuna ay noqoto gabadh raxmad iyo kalgacayl iyo jacayl ula diyaara markasta isla markaana ku soo dhaweysa hadaba Cabdihani Xaashi
waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah yacni shaahi bay u shubaysaa afka cuntada u gelinayaa farxadda iyagoo ku nool ayaa haddana dhibaato weyn baa soo asiibaysa dhibaatadaasina waa dhibaato dhalinyaro badan oo soomaaliyeed maanta soo asiibtay heesta macnaheeduna yacni waxa uu ka turjumaya waayaha dhalinyaro badan oo soomaaliyeed cabdixani xaashi waxa uu iska leeyahay beerta heesta markaynu dee heesta aynu falaqaynayno waa nin beer leh sida uu ku matalayo waa nin hidiyo dhaqankii xidhan waa nin liintii soo guraya waa nin sidoo kale beertii waraabinaya sidaasoy tahayna waa nin guduntiisa yeersita sidaasoy tahayna waa nin maaragtay yacni beertii wixii waraabee kasoo go-ay yacni wixii kasoo go-ay oo dhan dhammaanteed ayuu qaadayaa isla markaana wuxuu geynayaa magaalada haddaba bal waxaynu eegi doonaa erayada heestan inagoo maaragtay yacni rabna inaynu si fiican u fahanno midhaha heestan waxay ku bilowmaysaa dhada roob noqon weyday dhulka doojin weyday dheeman maaha naxaasto dhirtii oon tiri weyday waxaa laga hadlayaa run ahaantii markaynu ka hadlayno inagu aynu soo qaadano ma aha wax ciyaara run ahaantii waxay ka hadlaysaa heestani waayaha dhalinyaro badan oo soomaaliyeed waxaa jira dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo dalka xaas ku ah islamarkaana iska degan dalka islamarkaana barwaaqa ku sugan iyo nabad sidaasoy tahayna laakiin waxaa dhici kartaa in gabadh yacni isagoo gabadh qaba wiilkii dhalinyarada ahaa ee dalka joogay ama ninkii dhalinyarada ahaa in gabadh kaloo qurbaha ka timi islamarkaa ay ninkiiba jeclaato islamarkaana ay iibsato islamarkaana hanti ay ku fangarayso waxa uu leeyahay fanaanku dhadar roob noqon weeye dhadada waxaa la yidhahdaa waa taqaanaano waxa weeyaan yacni maaragtay marka yacni roobka oo kale waxa uu eegay maaragtay ceeryaanta waa dhammaantii waad garanaysaan dhada roob way noqon weyday dhulkii way doojin weyday dheeman maaha naxaasto dhirtiina way oon tiri weyday run ahaantiis waa runtiisa oo wuxuu leeyahay yacni aan qalbiguba igu degayn yacni waxaan dareemaya inaad iibsatay marka wuxuu ka hadlayaa guud ahaan heestan qof yacni lacag haysata oo qof kale iibsanaysa nin iibsanaysa xaaskiisa la jooga reerkiisa la jooga haddaba waa sidoo kale waxa uu sheegayaa yacni waxa uu leeyahay meel fog dhool ka hilaacay dhaanka looma raraysto yacni yacni adoo reerkaagii haystaa mustaqbalkaagii noloshaadii iyadoo ku dhan tahay yacni ha iska jeclaanin wadamada kale ha iska jeclaanin hanti ha iska jeclaanin waxyaabo kale ha ka tegin qofkii aad jeclayd sidoo kalena waxa uu leeyahay fanaankani waxaan daayuhu deeqin dhiilka looma hogaysto yacni macnaha waxa weeye waxaan daayaha deeqin dhiilka looma hogaysto waa runtiisa macnaha waxaan qalbigaagaba buuxinayn oo maaragtay aad og tahay inaad maaragtay dan u galayso yacni taasoo kale ha isku dayin buu leeyahay waxa weeye dhalan waana ma maydho buu yidhi dhalan waana ma maydho qofku hadduu markiisa hore ahaa qof maaragtay kartile nin kartile isla markaa reerkiisa iyo maaragtay ooridiisa iyo ubadkiisa iyo inta uu la nool yahayba yacni u ah yacni nin maaragtay fakaraya dee weligii alihii isbedeli maayo laakiin qof aan fakarayn baa isbedelaya buu leeyahay sidoo kale daawadayaal fanaanku waxa uu sheegayaa uu leeyahay cabdixani xaashi yacni isagoo ka hadlaya yacni dhibaatada waxyaalahaasi leeyihiin in maaragtay qof aad la noolayd islamarkaana farxad iyo nolol aad la wadaagaysa inaad qof kale ka raacdo qofka kale aad ka raacaysa waxa weeyaan tusaalahaan isagoo la nool xaaskiisii barwaaqo ku jira nabad ku jira wax walba ay u dhan yihiin ayaa waxa u imanaysa gabadh sida heestaad ku aragteen kadibna gabadhaasi marka ku aragto way kaxaysanaysaa waxay geynaysaa yacni magaaladay geynaysa isaguna reemiyiibu ku matalayaa gabadhii kalena way sugaysaa oo waxa weeyaan halkii bay ku sugaysaa isla markaana waayo saaka sidaad u fiirsateen waxa weeye subax uu geeyey magaalada qudaartii gabadhii kale kusoo maraysa miiska markay kusoo marto iyadoo wadada maraysa waxbay ka iibsan rabtaa laakiin markay wax ka iibsato run ahaantii way jeclaanaysaa kadibna way kaxaynaysaa gabadhii kalena gurigii bay ku sugaysaa waa halka uu ka leeyahay fanaanku halku dhaawacu gaadhay haddii aad dhayi weydo dhibtu kaama yaraato jacayl dhuuxa ku taabtay adoo ku dharaaray naftaada adoo ku dharaaray naftaada dhayaldhayal kaagama guuro run ahaantii qofkii aad jeclayd buu leeyahay qofkii aad nolosha wadaagtay si kastaba ahaatee adigoo maaragtay jacaylkaasi dhuuxaaga uu taabtay isla markaana laba qof wada nool waad ogtihiinoo waxa weeye labada qof ee wada nool nolosha sideeda horeba waxay isku yihiin ceesho milix yacni waxay isku yihiin laf
yacni ul iyo diirkeed bay isku yihiin, aad bay isu jecel yihiin. Sidaasay waayo waa qof aad la dhaqantay, yacni la noolaatay, cunto la cuntay, maaragtay la faraxday, meel la seexatay. Taasi waxay keenaysaa in maaragtay farxad badan aad dareento. Sidaas oo tahay waxa uu leeyahay yacni fanaanku jacayl waxaa ku taabtay adoo ku dharaaray naftaada dhayalkaaga ma guuro. Run ahaantii waa runtiisa. Waxa weeye qof aad la noolaydba maba ilaaweysid. Haddaba pageka labaad ee heesta ayaynu u gudbi doonaa. Run ahaantii gabadhu marka ay kaxayso ninkan waxa weeyaan uu dhakafaaraya. Marka uu dhakafaaro waxyaabaha ku dhacaya waxaa ka mid ah inuu maaragtay qofkii uu ka yimi iyo noloshii uu ku sugnaa iyo farxaddii uu ku sugnaa uu ka baxo. Isla markaana waxay gabadha ku samayn doontaa inay guri geyso, isla markaana labiskii hore hidiyo dhaqankiisana ay ka beddesho. Taasina waxa ay keenaysaa dhibaato xoog leh. Waayo waxa weeyaan waxa uu dareemayaa halkii hore uu farxadda ku haystay iyo qofka dhan ee soo iibsaday isaga keenay magaalada, isla markaana labiskii ka beddelay. Waxay ku dhacdaa qisadani dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed. Run ahaantiina waxa weeyaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo kaliya odhan kara maahan, laakiin adduweynaha oo dhan way ka dhacdaa. Sidaas oo tahayna heestan waxay kaloo leedahay pagekeeda labaad uu ku bilaabaya fanaanku yacni wuxuu odhanayaa dhacdadeeda yacni dhacdadeeda adduunka haddii aad dhugan weydo dhabanahays weeyaane ha ku dhakoolin naftayday dhalanteed run ha moodin. yacni afdhamaandhab waa been yacni waxba ha u dhegtaagin dhaqankaaga ha liidin. Erayada ayuu fanaanku tirinaya. Haddaynu mar kale ku soo celinana waxa weeye dhacdadeeda adduunyada ama adduunka haddii aad dhugan weydo dhabanahays weeyaane. Macnaha wuxuu leeyahay wax kasta oo nolosha waayo aragnimo waa inaad ka qaadataa. Sidaas oo tahayna haddii wax kastoo kugu dhaca aad yacni wax ka qaadan weydo waa dhabanahays, waad yaabanaan doontaa, isla markaana nolosha lama qabsan doontid. Sidaas oo tahayna nolosha waad ka dhici doontaa. Haddaba wuxuu naftiisa kula dardaarmayaa ha dhakoolin naftayday dhalanteed run ha moodin, afdhabaandhab waa been, waxba ha u dhegtaagin dhaqankaaga ha liidin. Yacni ha is odhanin qofkan kaa taajirsan, qofkan maaragtay kaa hanti badan, qofkan qurbaha ka yimi, qofkan ha u leecin. Ha is odhanin adiga yacni qof yaroo reer miyi baa tahay, waxaad iska joogtaa magaaladaadii. Sidaasoo iska tahayna wax badanna ma haysatid. Sidaasoo tahayna faqiir yar baad iska tahay ama faqiirad yar baad iska tahay. Ha is odhanin buu leeyahay. Run ahaantii waxa weeyaan qofka yacni lacagta haysta ku iibsanaya yacni waxa weeyaan ha isu liidin, dhaqankaaga ha liidin. Halkaana waxaan ka soo qaadan karnaa dhaqankaaga ha liidin marka uu leeyahay. Yacni waxaa jira rag Soomaaliyeed oo qurbaha ka yimaado hablo yaryar maaragtay yacni dhaqankooda iyo maaragtay ku ciyaara sharaftoodaba. Taasina waa mid weeyaan. Dadkuna iskuma jiraan. Waa kulli qaar xunna way jiraan, qaar wanaagsanna way jiraan. Halkuu dhaawacu gaadhay buu yidhi haddii aad dhayi weydo dhibtu kaama yaraato. Yacni haddii waxa naftaada aad beddeli weydo oo yacni maaragtay yacni marnaba dhibtu kaama yaraato. Haddaynu heesta kusoo laabano erayadana aynu ku dabaqno waxa uu ka wadaa marka maaragtay yacni halkuu dhaawacu gaadhay haddii aad dhayi weydo yacni markii laga iibsaday gabadhay ka kaxaystay sidaad muuqaal ku aragteen, gabadhay ka kaxaystay isla markaana ay geysay yacni gurigeeda, isla markaana labiskii iyo weliba muuqaalkii iyo gebi ahaantiisaba qofkii ay beddeshay. Isaga dhaawac baa soo gaadhay. Waayo qofkii uu nolosha la qaatay ee shaaha u shubaysay maaragtay shaaha u karinaysay sida muuqaalkaba ku daawateen, yacni cuntada u sameynaysay, afka wax u gelin, farxadda ku wada noolaayeen, qofkaas ayaa ah qofka kaliya ee maaragtay uu dhab u jeclaa. Sidaas oo tahayna waxa uu yidhi halkuu dhaawacu gaadhay haddii aad dhayi weydo yacni qalbiga weeyaan haddii aad dhayi weydo dhibtu kaama yaraato. Yacni mar walba waan soo fikirayaa, mar walba waan boholyoobayaa. Qofkii maaragtay layga soo kaxeeyey ee layga kaxaystay ayaa run ahaantii mar walba niyaddayda ku weyn ayuu yidhi. Sidaa daraaddeed waa inaan qalbigayga dhayaa buu leeyahay. Yacni si ay dhibaatadu iga yaraato, dhibaatada gudahayga ka socota. Haddaba sidoo kale wuxuu yidhi jacayl dhuuxa ku taabtay adoo ku dharaaray naftaada dhayalkaaga ma guuro. Yacni haddii aynu hadalka soo koobno waxa uu leeyahay qofkii aan jeclaa si kastaba jacaylkiisa dhuuxa ayuu taabtay, yacni qalbigaygu degay. Sidaas oo tahayna weligii iyo allihii haddii meel kastaan ka qabto, haddii yacni badda macaan laga soo dhigo, haddii maaragtay yacni adduunyada oo dhan la isu soo geeyo, caddaan iyo madow dadka jooga oo dhan, isaga jacaylkiisu qofkayga ma guuro buu leeyahay. Waa gabadhii uu jeclaa. Taasi waxa ay ka dhigan tahay heestani yacni ay ka hadlaysaa nolosha dhabta ah maaha
yacni hanti maaha, lacag maaha. Yacni nolosha dhabta waa sharaf, cisi iyo welibana maaragtay farxad weeyaan. Halkaad farxad ka helayso waad garanaysaa, halkaad cisi ka helayso waad garanaysaa, halkaad sharafta ka helayso waad garanaysaa. Wixii kalena way iska imanayaan sida lacagta iyo maaragtay welibana horumarka way iska imanayaan. Laakiin noloshu waxa weeyaan oo ugu wanaagsan welibana oo weliba ugu wanaagsan oo boqolkiiba boqol la odhan karaa in qof bini'aadana qalbigiisa aad ilaaliso, weliba qof nolosha kula qaybsaday oo welibana maaragtay the right person inaad qalbigiisa ilaaliso. Haddaba daawadayaal idinkana aragtidiina.